ninkii iibin jiray hudheeda ama dharka celiska ah ee isku bedelay hantilaha xidig caan ka ahaa barta Instagram-ka oo ay ku xiran yihiin dad ka badan 2 milyan oo qof in marka uu safrayo raaca diyaaradaha gaarka ah kana dukaamaysta shirkadaha gada alaabaha qaaliga ah sida Gucci iyo Louis Vuitton kadibna isku bedelay khiyaanoole dhacay malaayiin dollar kuna dambeeyay xabsi ku yaala dalka Mareykanka waa kuma ninka ay xaaladdu sidaas isugu bedeshay magaciisa waxa la dhahaa Roman Abbas laakiin magaca uu baraha bulshada ku joogay waa Hush Bobby haddaba waa kuma Hush Bobby sidee buu dadka ku dhici jiray intaan la qaban ka hor Hush Bobby wuxuu ku dhashay kuna barbaaray dalka Nigeria kadib waxa uu u dhoofay Malaysia halkaas oo uu markii dambe ka sii aaday Imaaraadka gaar ahaan magaalada Dubai oo uu ku noolaa intii ka dambeysay wuxuu iskuulka sare ka dhigtay iskuul ay dawladdu leedahay oo ku yaala magaalada Lagos ee dalka Nigeria reerkiisu waxay ahaayeen qoys danyar ah oo aan haysan wax ay ku maareeyaan carruurtooda markii uu yaraa wuxuu ka shaqayn jiray iibinta hudheeda ama dharka celiska ah sida aad hadba u taqaanid halka aabihiisna uu ahaa taksiile Hush Bobby noloshiisu waxay isbedeshay markii uu dalka ka baxay oo uu safray Dubai ka hor inta uusan Dubai aadin wuxuu joogay Malaysia muddo kooban xidigan wuxuu isku bedelay muddo kooban gudaheed waxayna noqotay in asxaabtiisii uu uga soo tagay dalka Nigeria ay aamini waayaan sida uu saaxiibkoodii faqriga la ahaa maanta uu u wato baabuurta kuwa ugu qaalisan dunida maadaama hadalhayn badan laga keenay hantida uu helay Hush Bobby wuxuu bilaabay in uu dadka u sheego in uu yahay maalgashada ka shaqeysta real estate-ka ama guryaha intaas wixii ka dambeysayna wuxuu bilaabay in uu barta Instagram-ka soo dhigo sawirada baabuurta iyo dharka qaaliga ah ee uu leeyahay isagoo soo jiitay dad badan oo dhammaan daafaha caalamka kala jooga laakiinse dadku maysan ogeyn Hush Bobby shaqada dhabta ah ee uu ka shaqeeyo ninkan markii uu tagay Dubai wuxuu ku biiray koox Nigerian ah oo ka shaqeyn jirtay internetka kuwaas oo dadka ku dhici jiray maalgashiga been abuurka ah dhowr sano oo uu ka mid ahaa kooxdan wuxuu Mr Hush Bobby dhacay dad fara badan oo ku kala nool qaaradaha Yurub iyo Ameerika dadkaas oo uu ka dhacay lacag gaaraysa 1 bilyan oo dollar wuxuuna ganacsigiisu ahaa mid aan la ogeyn sidoo kale wuxuu lacag fara badan ka dhacay ganacsato Carab ah oo ku nooleed Imaaraadka wuxuu samaystay saaxiibo fara badan oo qaarkood ay yihiin dad magac iyo sharaf ku leh bulshada kuwaas oo uu sheekeeyay in uu yahay nin ganacsade ah oo laga yaqaan Dubai oo dhan sanado badan oo uu ku raaxaysanayay Dubai kadib waxa ninkan laga sheekeeyay markii uu u safray dalka Mareykanka gaar ahaan magaalada Los Angeles kadib markii ay booliiska dalkaas ay ogaadeen in ninkan uusan ahayn nin ganacsade ah wuxuuna ku soo laabtay magaalada Dubai laakiinse ma uusan ogeyn in booliiskii ka sheekeeyay ay wali dabagal ku hayaan wuxuuna sii watay shaqadiisii dhaca ahayd muddo kooban kadib waxa ninkan soo qabtay booliiska Dubai iyo FBI-da Mareykanka kuwaas oo habeen madow ugu galay qasrigiisii ku yaalay Dubai booliisku markii ay qabteen waxay guriga ka heleen kombiyuutarro moobilo lacag fara badan oo kaash ah iyo faylal ay ku qoran yihiin emailada dadkii uu dhacay sidoo kale guriga waxa la joogay 12 nin oo kamid ah tuugadii ay wax isla dhici jireen markii la soo qabtay booliisku waxay ku wareejiyeen FBI-da kadibna waxa loo qaaday dalka Mareykanka halkaas oo uu ku dambeeyay waxaana lagu helay dambiye ay kamid yihiin in uu dad malaayiin qof ah lacag ka dhacay iyo sidoo kale money laundering ama in uu dhaqi jiray lacagaha sharci darrada ah dhammaan hantidiisii waxa la wareegtay hay'adda FBI-da haddii aad soo gaartay halkan fadlan ha naga hilmaamin in aad subscribe saarto kanaalka Dhextaal mahadsanid